waxaa si xawli ah ku socda dagaalka ay maleeshiyada macawisleyda qaybta ka yihiin ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab. dagaalku waxa uu si weyn u bilowday wixii ka dambeeyay markii ay dowladda cusub ee hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku dhawaaqday in shaqadeeda ugu horeyso ay ka dhigayso sidii loo soo afjari lahaa kooxda al-shabaab. dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ayaa mararka qaar u muuqda isdhaxyaac aan hoggaan dhab ah lahayn, inkastoo horumar aad u weyn laga gaaray dhanka gobolka hiiraan. ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya inta uu leegyahay khasaaraha ilaa iyo hadda ka dhashay dagaalka fariimaha badan, inkastoo ay hoggaanka ciidanka xoogga dalka ay ku jiraan sida jenaraal biixi iyo jenaraal odowaa. haddana waxaa mar walba ka hadla miidiyaha siyaasiyiintuu tagishtay oo jooga jidda hore ee dagaalka. dowladda uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa cadaadis weyn ku haysa saxaafadda madaxa bannaan iyadoo islamarkaana xabsiga u taxabtay wariyayaal. sidoo kale waxaa la amray saxaafadda madaxa bannaan inaysan la wadaagin bulshada wax war oo ku saabsan al-shabaab haddii ay ahaan lahaayeen fariimaha al-shabaab iyo wixii la midka ah. shirkana jaraa'idda maanta waxa uu ku saabsan yahay qaybta saddexaad ee ku saabsan joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ama cabsigelinta in la faafiyo. sidaas daraaddeed dowladda Soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda, sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka, waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nooc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nooc kasta ay yihiin. go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horay dowladdu u gaartay, qaybo ka mid oo ay fuleen, qaybana ay dhimanaayeen. sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arrintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldambiyeed nooc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo. haddaba dadka qaar ayaa ka walaac qaba natiijada ka imaan karta dagaalka kadib, inkastoo lagu kala aragti duwan yahay. dadka qaar waxay dowladda ku eedeeyaan in ay si aan ka fiirsi lahayn u hubaynayso maleeshiyo qabaa'il, walow aqoon-yahano iyo falaaqeeyayaasha arrimaha gobolka geeska afrika ay soo jeediyeen in dagaalka macawisleyda iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jiraan kooxda al-shabaab ay tahay fursad muhiim oo lagu soo afjari karo kooxda al-shabaab. haddaanu eegno caqabadaha horyaala dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka mid ah: kow, waxaa macquul ah in beelaha markii horeba dhex taalay xurguf ay mid ka mid ah ka qayb qaadato la dagaalanka kooxda al-shabaab ayagoo hub iyo saaniid ka helaya dowladda Soomaaliya, kadibna ay beesha kale shabaabka u adeegsadaan la dagaalankeeda ayagoo tusaya in fursad ay u haystaan iska dhicinta beesha una ballan qaadayaan hub iyo saani la mid ah mid ay dowladda siisay. labo, deegaanada laga xoreeyay al-shabaab waxay u baahan yihiin ciidan iyo hay'adaha dowladda oo ka howlgala. ma siyaasiyiin muqdisho ka yimid ayaa loo dhiibayaa mise dadka deegaanka ah ee ku lug lahaa xoreynta deegaanadaasi. kadib haddii lasoo afjaro kooxda al-shabaab, maleeshiyada macawisleyda oo hubaysan ayaa noqon kara sidii kuwii ahlu sunna, maadaama ay ku lahaayeen xoreynta deegaanadooda. waxaa macquul ah in uu hami ka galo hoggaanka sare ee deegaanadaasi. haddaba dowladda Soomaaliya ma jiro qorshe ay warbaahinta la wadaagtay oo ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa kooxda macawisleyda si aysan isugu beddelin maleeshiyo la dagaalanta dowladda Soomaaliya ama isku dhacyo xagga qabiilada hubaysan. Soomaaliya waxay ka degi laadahay maleeshiyo hubaysan haddii ay ahaan lahaayeen kuwo qabaa'ileed ama diineed. sidaa darteed waxaa ku qasban dowladda federaalka Soomaaliya inay la timaado qorshe ay ku xakameynayso qalalaaso dhexmara qabiilada ay hubaynayso. isku soo wada duubo, waxay dowladda uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay haysataa fursad aanu soo marin maamulkii ka horeeyay, kuwaasoo ah in shacabka ay u hiilan yihiin iska dhicinta kooxda arxamlaawayaasha ee al-shabaab, kuwaasoo u baahan in lagu hogaamiyo keliya. waxaa kaloo diyaar u ah 5,000 oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo tababar ku dhammaystay dalka Eritrea. ma jiro xilli ka wanaagsan oo ay u adeegi lahaayeen dalkooda xilli kooxda argagixisada al-shabaab ay ku laynayso maatada Soomaaliya. ilaa iyo hadda lama oga waxaa hortaagan inay dib ugu soo laabtaan dalkooda, taasoo dhalisay su'aalo.